waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahadsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno بسم الله الرحمن الرحيم أرضي waxay dib aynu bilowna xiisadeeni especially revision ka maadaama aynu dhamaadeen chapteradii caadiga aynu dhigaynay chapterkii noogu dambeeyay aynu ku jirnay waxa uu habboon tori kiibin waxaan inuu mareynay qaybtiisa la yiraahdo parties of egg haddii aan in yar revision ku celiyo ama dib ugu yar celiyo chapterku wuxuu ka koobnaa qodobadiisa waxa kamid ah definition oo arday walba uu garanayo what is mean the word of poultry why the rewise the practice of rearing of poultry for the production of egg and meat qodobkii labaad ee soo qaadanay wuxuu ahaa purpose ama purposes ujeedooyinka loo dhaqdaana waxay ahaayeen saddex qaybood inaynu u dhaqanino beed inaynu ka helno egg iyo inaynu ka helno egg meat iyo dual purpose oo ah labadaba kuwa beedka loo dhaqdo magacooda waxa la yiraahdaa ama aynu oran jirnay layers kuwa hilibka u dhaqanana waxa loo yaqaanay broilers laakiin dual purpose markaan leenahay macnaheedu waxa weeye diyaagadii saaka beedkeeda lagu quraacday caawina hilibkeeda lagu cashaynaya qodobka saddexaad ee ardaydu soo baranay waxa kamid ah terms used why in poultry why breeding magacyadii loo isticmaalay oo aynu ka soo bilownay from chick to aynu keenaynay muxuu ahaa cock oo aynu shan magac ku soo baranay iyo saddex erey oo aynu terminology u adeegsanaynay oo ay kamid ahaayeen carbon layers iyo broilers qodobkeenu ugu dambeeyay waxaan soo baranay importance why of poultry ama faa'iidooyinka laga helo hadii la dhaqdo digaaga waxaan ku soo baranay ilaa 4 qodob kii ugu dambeeyay aynu qaadanay sida aan xasuusanahay waxa uu ahaa rearing system gaasi wuxuu ahaa hababkii loo dhaqanayay digaaga waxaanaynu u qaybinay saddexad oo la kala yiraahdo free range intensive iyo extensive free range macnaheedu waa maxay digaaga maalintii waa la sii deynaya habeenkiina waa la soo xareynaya Soomaaliland ba looga dhaqlaabay inuu habkan labaad semi intensive digaaga 10 digaagood ba saxarad lagu xareynayay taayir yar leh fall ama arc unit ba loo leeyahay ka ugu dambeeyana laba inuu qaybinaynay oo waxa la kala yiraahdaa baan yiri intensive system ka deep lighter iyo battery cage system intaas waa revision maanta waxaanu ka bilaabaynaa arday casharkeena hadii la yiraahdo parties of egg beedka iyo qaybihiisa the egg wire of chicken beedka digaaga is composed waxa uu ka kooban yahay the following kuwa soo socda waa shell oo ah qolofta ugu sareysa albumin oo ah qaybta aynu naqaan xabka ee colorless-ka yolk oo ah qaybta huruuda vitelline membrane xoob yar oo aynu arki doono shaqadiisa laakiin ka samaysan proteins terminaliski qodobkaas waxa uu gaar u yahay kaliya digaagada female-ka oo diigu ma laha waa dhibicda madow ee sawirka ka muuqata
waxa soo laba noqotay kelmadda yool waxa ku jira halkan Allahu musta'aan jalaasi oo ay noqon doono waa dunyar oo qaybta huruudda ku ilaalinaysa bartanka iyo ersal oo halkii hawada ka qaadanayay waxaan ku sharaxi doonaa hadii la yiraahdo qodobadeena oo dhan sawirkaasi bal haynu sii dul marmar mid kasta shaqadiisa oo qabanayo iyo doorka uu qaadanayo waxaan ribaartu safeeg wuxuu qaybsamayaa intan oo qaybood waa qaybaha ugu muhiimsan shell waa qaybta ugu sareysa ee sawirka for example shell waxa uu waa kan waa qaybta ugu sareysa oo layerka ugu sareeya shaqadiisu waa maxay inteena uu tagay wuxuu ka sameeyay yahay shaqadiisu laba baa isaga laba qaybsamaya oo kala noqonaya outer iyo inner outerka shaqadiisu waxa weeyaan inuu ka ilaaliyo beedka wixii kaga imanaya xagga sare inner kana shaqadiisu waxa weeyaan inuu ku ilaaliyo beedka wixii qoyaan uu leeyahay si uu muddo si jiro waa qolofta ugu sareysa ee beedka qaybta labaad waa qaybta cadaanka waa qaybta loo yaqaan albuman sida magaca ku cad waa qaybta xabka iyadoo waa qaybtii proteins ahayd waliba proteinadii laga maarmaanka ahaa waxa yar dilaacayo qaybtan dhexda ku jirta ee madowga ku sawirnay waxa la yiraahdaa magaceeda yolk waa qaybta huruudda ee beedka waa qaybta proteinska oo ilmaha yari ku noolaanayo inta uu ku jiro hatchinka dilaacitaanka qalin casbaan sanu dul mariyay qalinkan cas magaciisa waxa la yiraahdaa vitamin membrane waa xub ka samaysan proteins kaasoo shaqadiisu tahay it prevents why disintegrating yolk into the albumin or albumin into the yolk inay labadoodan isku dhex daataan ayuu kala ilaalinaya calaamadan duntan aynu soo ugu wareejinay dhinacyada ka xidhnay magaceeda waxa la yiraahdaa jalaasidaasi shaqadeedu iyadana waxa weeyaan in qaybta huruudda ku ilaaliso bartanka oo it keeps the yolk into the center of the egg waxay ku ilaalinaysaa beedka qaybta huruudda ay bartanka ku ilaalinaysaa si aanu labada cidhif mid kamid ah aanu tagin way halkan waxaan ku sawirnay calaamad baan ka soo saarnay waa air cell baan niri air cell macnaheedu waxa weeyaan waa halkii uu hawada ka qaadanayay waxa yar ee noole meesha ku jira dhibicdan madoween meesha ku sameynay waxa la yiraahdaa inuu terminal disk waa where the genetic material of the female is found waa meesha laga helo waxyaabaha uu isticmaalaysa taranka tadidigi oo beedkii waa la kala garan karaa for example inuu yahay female iyo inuu yahay male qaabka ku kala garanaysa aan inii sheegi doona marka parts of egg qaybahaas aan ku soo koobaynaa hadii la yiraahdo bal haddaba mid kasta shaqadiisa ayaan dib ugu noqonaynaa qaybta yolk haddaan ka bilaabo waa qaybta huruudda shaqadeedu ugu muhiimsan waxa weeyaan inuu ka helo fatiskii uu baahnaa ilmaha yar ee meesha ku koreeya qaybtan cadaanka waa qaybta ugu badan ee beedka it contains necessary proteins that providing young waa waxyaabaha borotiinada ee laga maarmaanka waa waxan yar ee koreeya vitamin membrane saan hore inagu soo sheegay waa xuubka kala ilaalinaya inay labadoodani isku dhex daataan shaqadiisu markaa waa maxay it prevents albumin it prevents disintegration albumin into the yolk inay qaybtan cadaanka ku dhex daato qaybtan uu diidaya exampleskooda haddii aan soo qaadano practical waxaan soo qaaday beedkani waa uu karsan yahay waliba si fiican u bislaanin oo timeka ku yaraaday laakiin se markaan saa u kala gooyo waxaad ku arki doontaa qaybtaasi xuub waxaa la yidhahdaa waa inner membrane of the egg of an egg qaybtan sare ee cadaanka ee qolofta ee caadiga ah waxaa la yidhahdaa outer oo waxaanu shaqadeedu waxa weeyaan iyada inay ka ilaaliso wixii dibadda kaga imanaya example bacteria wixii soo galayay ayay ka ilaalinaysaa xuubka yar ee naqan saan uu wada bislaanin oo qaybtii yoolkii qayb la socotaa laakiin xuubka yar shaqadiisu waa maxay waxa uu ku ilaalinaya qoyaankii
beedku inuu ka baxo ayuu ka ilaalinaya bal waxaanu eegaynaa vitamin membrane-kani waxa uu yahay isaga waxaanu u samaynaynaa wisdom practical oo waxaan soo qaadanay xabad beeda for example marka horaaba iska jabnayd markaan xabadii beed ahayd halkan ku rido shaqadaan qabanayo isaga vitamin membrane-ku waa maxay shaqadiisu waa prevent disintegrating albumin into the yolk inay qaybta huruudii ku dhex daadato qaybta caddaanka ayuu diidayaa therefore markaan doonayo inaan vitamin membrane-ka jabiyo saasaan odhanaya ujeeddada iyo hadafka ugu muhiimsan ee aan ka leeyahay waxa weeyaan inay isku dhex daataan imiga beedkii iyo qaybtii kale labaduba way isdhex galeen ujeeddada aan isku dhex geliyna waxay mulqaacaddan ayaan ku garaacay waxaanan jebiyey leeyar ka yar markaa vitamin membrane-ka shaqadiisa ugu muhiimsan waa maxay labadoodu kala ilaalinaya kadibna markaan jabiyo labadoodu isku dhex daadanaya imika waa isku dhex daatay ee meel ku wada milmay okay again haddaan mar soo dul maro in short si yaroo gaaban arday maanta waxaanu qaadanay parts of egg waa qaybahii beedka the egg white of chicken beedka qaybihiisu is composed oo waxay ka kooban yihiin shell waa qolofta sare shaqadeedu waxay ka samaysan tahay qolofta sare calcium shaqadeeda ugu muhiimsan waa maxay waa inay ka ilaaliso beedkii wixii dibadda kaga imanayay iyo wixii gudaha ka soo baxayay qoyaankii albumin waa borotiiniska ugu muhiimsan borotiiniskaasi waxaa ku koraya ilmaha yar ee meesha ku noola yolk waa qaybta faatiska waxaana isticmaalaya ilmaha yar ee meesha ku nool vitamin membrane saynu practicalka ku arkaynay waa xuubka kala ilaalinaya in isku dhex daataan qaybta huruudda iyo qaybta muxuu ahaa caddaanka ama colorlesska iyo albumka la yidhaahdo terminaliski waxaynu nidhi waa genetic materials waa found waa genetic materialka waxyaabaha isticmaasho tedidigi ama diyaagadu jalaasi waa dun ka samaysan proteins duntaasi oo shaqadeedu tahay it keeps the yolk into the center of the egg inay beedka bartigiisa ku ilaaliso air cell markaan leenahay air cellka waa halkii hawadu ka soo galayso haddaba ardaygu wuxuu isweydiinayaa oo ugu muhiimsan qaybihii beedka oo dhan waan aragnay terminal sidee baad ku ogaan kartaa beedkani inuu yahay mid quality-giisu fiican yahay oo dilaacaya iyo mid aan dilaacayn beedka marka ugu horeysa diyaagadu keligeed bay dhashaa oo bilaadiig diyaagadu way dhashaa ha dhasho diyaagadu waxay u baahan tahay iyadu only light laakiin beedkaasi ma dilaacayo because of waxa ka maqan salkii ayaa ka maqan beedka dilaacaya kaliya waxa weeyaan ka yimaada male and female ama diig iyo diyaagada ay dhalaan oo waxa la yiraahdo fertilized egg baa la yiraahdaa sidaad ku ogaanayso for example waxaad soo qaadanaysaa examination of an egg kartoon baad soo qaadanaysaa kartoonkan inta badan muraayadaha lagu keenay qaradiisu weyn tahay kartoonkaasi ayaad xoog u duubaysaa kadibna waxaad ka soo gelinaysaa xabadii beed ahayd kartoonkii xagga sare xagga hoosena waxaad ka soo gelin doontaa laambad ama toosh kolba kaadesho waxaad la tegaysaa qol madow oo aanu meelna iftiin uga soo gelaynin kadibna dhammaan laydka tooshka ama laambadu waa inay ka soo dhex baxaan beedkii dhexdiisii kadibna waxaad ku dul istaagaysaa xagga sare wax kasta oo beedkaasi ka kooban yahay waxaad ku arkaysaa xagga sare aad ka arkaysaa haddii uu diig iyo diyaagad ka yimiday oo salkii uu ku jiro waad arkaysaa haddii diyaagad keliya dhashay waad arkaysaa haddii qaybta huruudda ah ama yoolkani labada dhinaca u badan tahay oo beeshaa santarka ka dhaqaaqsan tahay iyadana waad arkaysaa kadibna waxaad dooran doontaa dee ka ku anfacaya waynu arki doonaa qualities of eggs haddii la yidhaahdo qodobkeenna labaad arday waxaynu u gudbaynaa wax la yidhahdo incubation waa noun waxay ka timid kelmad la yidhahdo incubate oo feebkiya incubatena waa ku fadhiisashada ay shimbirtu ku fadhiisanayso beedkii
incubation hadda waxaan oran doonaa waa is the process waa hab of providing lagu siinayo a fertilized egg beedkii ka yimid diig iyo digaagad with necessary conditions xaaladihii lagama maarmaanka u ahaa for hatching inuu dilaaco incubation waa processkii again what is the process waa hab of providing lagu siinayo of fertilized egg erigan fertilized egg markaan isticmaalayno waxaynu iska reebaynaa beedkii ay digaagada kaliya dhashay waayo with necessary conditions waxa lagu siinayaa xaaladaha lagama maarmaanka waa for hatching inuu beedkii dilaaco it takes waxa ay ku qaadataa 21 days in chicken 21 maalmood ayay ku qaadataa marka laga hadlayo digaaga oo kelmadda chick waa chicken waxa u gaar tahay digaaga laakiin kelmadda ereyga poultry markaan leenahay waa all domesticated birds for the production of egg and meat oo waxa ka mid noqonaya turkey ostriches bighorn ilaa xamaamka ka mid noqonaya shimbirihii oo dhan ku jira laakiin chickinku salaan 21 cisho ayay ku qaadataa waxa jira hadaba wax la yiraahdo incubation period incubation period incubation periodku waa muddadii waa timekii ay ku qaadanaysay digaagadu inay beedka ku dilaaciso oo ah muddo 21 cisho kelmadan ama ereygan incubation period laba macno leeyahay ilaa 3 macno ayuu leeyahay macnaha koowaad inagu markaynu isticmaalano incubation period waa the time taken waa muddada ay ku qaato inay digaagadu beedka ku dilaaciso oo ah 21 cisho laakiin haddii laga hadlayo xagga caafimaadka incubation periodku waa xilliga uu cudurku dhaco iyo symptomskiisa ugu horeeya inta kaga soo muuqanayaan ayaa loo yaqaan incubation period for example cudurka imika adduunyadu ka qayliso ee la yiraahdo covid-19 incubation periodkiisu waa 14 cisho taas way muddada la go'doominayo ama quarantine la sameeyo loo badiyay oo dadkii hore loogama garanayo saadaradeed loo kordhiyay halkaasi ayaan ku soo gabagabeyn doonaa hadii la yiraahdo casharkeena maanta halkaas aynu ka sii wadi doonaa next period casharkeena wuxuu ku saabsanaa parts of egg halkaas aynu ka soo doonaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh